إن معلك الدكسي كودان أي كحرين شيغ أي بريان واحد دينتين اللي جبر تبل واي أيجو وراح أنوكو أن أجنهي ما يكسب اللودان أي سن كان نجى جليون وقصباين أنا قاعد وينون وأتكيس وينواي haddii aad soo daawateen masaajid lagu dhex dilay dad mu'adin lagu dhex dilay masaajid iyo masaajidda la xiray oo ay u bedeleen goobo ganacsi markan waxaan idin wadnaa masaajid ay dhismihiisa ku xujeeyeen dadka deegaanka inay bixiyaan lacago in la dhiso goobo la dartii loogu cibaadeysto waa mid farxad gelisa qof kastoo islaam ah qofka Soomaaliga ahna waxa uu degdegaa sidoo xoog iyo xoolo ugu darsan lahaa dhismaha masaajidkaasi balse ka waran haddii koox sheeganaysa in la dartii ay u dagaalamayaan ay masaajid ka qaadaan lacag baada bixiya lacag $10 si aad u dhistaan masaajidkan kariya cunto intaas leeg si ay u cunaan askarteena haddii kale lama dhisi doono masaajidkan waa falka aan kula kulanay tuulada Ceelmuluq oo hoos tagta degmada Ayabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe dadka tuulada Ceelmuluq oo qawaaridtu ay ku qasabtay inay lacag baada bixiyaan ayaa iga waramay wixii qawaaridta ay kala kulmeen markii ay dhisayeen masaajidka kaliya ee ku yaala tuuladan iyo dhulka u dhow masjidka meeshan ku yaala oo hadda dhisan quruxdan qaba annanka aanu ko meelan ku dukana haysan asaga marka la dhisayay waxay yiraahdeen ko lacag la siin la dhisma lacag ay ka qaateen ama madax geli karin kadibna mar alla marka la dhisayo waxay ku mushaarayeen dadka dhisaya hadii dadka mushaarkiisa waxay qaadan jireen intaasna hadii ma taqaanaa maal alla marka wax laga qabto waxay cuni jireen bariga ma hayaan war bariga waxaan rabnaa intaan qaata saasal ku dhisay nimankii ma joogo mogaas xukuumad ma xukuumay oo lahaay shabaab la dhihi jiray waxay yiraahdeen adigoon hadii adan nasiinin lacag lama dhisi karo haddii qof alla qof amar siiyaan wax alla lacag sheegaysaa hadii iyo si walba ay ku yiraahdeen waa inaad ku qasbanaato hadii kale soo qortaada buu maqanba sida iyo adduunyada lagu arki jiray tuuladan iyo dhulka ku xeeran lagama helo dugsi quraan sheekh isku xira dumarka iyo ragga meel lagu barto culumta diinta islaamka intaasna waxaa ka ooday qawaaridta arxanka daran waxyaabaha diinta ku saabsan oo nagu dhibaateeyeen in macallinkii dugsiga ka wadeen ay ka xirin sheekh ay buriyeen wax diintii laga bartaba la waayay ayagu warax anuku an ognahay ma ka soo bilowdeen ay sanka naga galiyoon ugu qasbaayeen annan qaada weynoon u adkaysa weyno waay